Ma ogeed in muslimiintu ay ka horeeyeen qaaradda Yurub dhisidda jaamacadaha muddo dhan 229 sano. Haa, waa xaqiiqo taariikhi ah. Maanta waxaan idiin soo bandhigaynaa 5 jaamacadood ee ugu faca weyn dunida ee weli shaqeynayo. Halkan waa page-keena cusub ee fahamka nolosha. Waxaan ku soo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. Page-ka follow dhe si aad ula socoto muuqaalada xiga. Jaamacadda shanaad ee ugu faca weyn waa Jaamacadda Salamanca ee ku taala dalka Spain. Waxaa la aasaasay sanadkii 1134 iyadoo uu yegleelay boqorkii Alfonsigii 9aad. Jaamacaddani waxay ahayd tii ugu horeysay ee dalka Spain si rasmi ah u qaadata magaca university. Waxay door weyn ka qaadatay barashada sharciga iyo culuumta kale ee Yurubta Koonfureed intii lagu jiray qarniyadii dhexe. Jaamacadda afaraad ee ugu faca weyn adduunka waa Jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriiska. Inkastoo aan la hayn maalin sax ah oo la aasaasay, haddana xogtu waxay muujinaysaa in waxbarashadu ay halkaasi ka bilaabatay sanadkii 1096. Waxay si xawli ah u kortay kadib markii boqor Henrigii labaad uu ka mamnuucay ardayda Ingiriiska inay wax ka bartaan Jaamacadda Paris, taas oo la aasaasay 1150. Go'aankaas boqorka wuxuu Oxford ka dhigay hoyga aqoonta ee dunida ku hadasha afka Ingiriiska. Jaamacadda saddexaad ee ugu faca weyn adduunka waa Jaamacadda Bologna ee ku taala dalka Talyaaniga. Waxaa la aasaasay sanadkii 1088. Waxaa loo tixgeliyaa tan ugu faca weyn qaaradda Yurub. Waa jaamacaddii ugu horeysay ee isticmaashay ereyga universitas, inkastoo ay ka dambeysay Jaamacadda Al-Qarawiyyin muddo dhan 229 sano. Jaamacadda labaad ee ugu faca weyn waa Jaamacadda Al-Azhar ee ku taala magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waxaa la aasaasay sanadkii 970 wax yar kadib markii la dhisay magaalada Qaahira. Al-Azhar waxay qarniyo badan ahayd xarunta ugu weyn ee looga tillaabsado barashada diinta Islaamka iyo culuumta luqadda Carabiga. Ilaa maantana waxay weli tahay tiir weyn oo u taagan aqoonta iyo ilbaxnimada dunida muslimka. Jaamacadda koowaad ee ugu faca weyn adduunka oo weli shaqeynaysa waa Jaamacadda Al-Qarawiyyin ee ku taala magaalada Fez ee dalka Morocco. Waxaa la aasaasay sanadkii 859. Jaamacaddan ma aysan aasin dowlad ama boqor, balse waxaa aasaastay haweeney muslimad ah oo lagu magacaabo Faadumo Al-Fihri. UNESCO iyo Guinness World Record waxay si rasmi ah u aqoonsan yihiin inay tahay machad waxbarasho ee ugu horeeyay ee caalamka laga yegleelo. Tani waa markhaati cad oo muujinaysa in Islaamku yahay isha ay ka soo bilaabato tacliinta sare ee maanta dunida ku faanto. Sidaad ku aragteen safarkeena maanta, nidaamka jaamacadeed ma ahan mid ku cusub ummadda muslimka, balse waa dhaxal aan adduunka ugu deeqnay. Adiga ma ogeed in farqi dhan 229 sano uu u dhaxeeyo jaamacaddii ugu horeysay ee Islaamka iyo kuwa Yurub? Noogu reeb fikirkaada qaybta faallada. Saaxiib, haddii intaan la soo gaartay, fadlan akoonka subscribe dhe, video like saar, noona sii share garay mahadsanid.